waxyaabaha dhacaya waa waxa looga naxo waana wax laga murugoodo waana wax laga yaqiiqsado xaaladdu se waxay si adag tahay marka jaraa'imta noocaas lagu samaynayo magac jihaad markii lagu samaynayo magac diinta ilaahay baa loo nusraynaya marka lagu samaynayo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladdu si adag tahay maxaa yeelay dadkii iyo diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafaasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma ah adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo ood sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yidhaahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma ah soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalaan baabi'iyey iyo murtadiin baan baabi'iyey ood ummaddii ku tumato ilaahay baan idinku dhaariyey suuro noocee bay u taallaa masaasaa jihaada mataasaa gaalan la dagaalan ah mataasaa waddan xorayn ah mataasaa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan suuro qabiixa wey waxaad soogaanaysaan wax hadda dhacay meehe way soo hormartay taariikhda marka dib loo akhriyo fikirkan munxarifka ah een dhiigga u aabayeelaynin ee meel alla meeshuu arkaba dhiigga cabbaye daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo carruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi haddana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفك الراشد كأها رجي إسلام كقادر رجي وجوه الريب كمده النبي صلى الله عليه وسلم قبل يسيبه قوي الماذير روي هايين أستقوا النول بنبي قد شنده أقول بشاري السابقين تبو كمده هي أفرت صحابة أقول فضل بدن نمبا ليجي سحلا شري إسلام نمو الجهاد نكو حلا شري ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid uu madaxa ku dhuftay isagii nin kale Ali markuu dhacay ayuu wuxuu ku yiri ku dul akhriya Ali oo yaala wuxuu yiri Ali xukumka Ilaahay baa iskale aduguna malihid saaxiibadana male xukumka Ilaahay baa iskale muxuu ka wadaa kitaabkii Ilaahay baad ka leexatay oo rag baad ra'yigooda qaadatay xukumka Ilaahay baa iskale annaguna waxaan ku dilaynaa diin rabbi inaan soo celino kitaab Ilaahayna dhulka ku xukun xukumka Ilaahay baa iskale adiga raggaagu malihidin caliyow markaasuu akhriyay wa min an-naasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaatillah dadka waxa kamida ruux naftiisa Ilaahay ka gaday ridihiisa isagoo raadinay waxaan ku dilay caliyow jannaan kugu rabaa ridaan Ilaahay kaga doonaya waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo Allahu akbar ma cali baa dhiigiisa janno lagu gali ma cali baa dhiigiisa kitaab Ilaahay lagu koryeeli ma cali ibn Abi Talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir ajiib ah markaas mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsanaa aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duridda sameeyay ee cali duray taqi Ilaahay ka baqayo aha duridda iyo dibka uu geystayna jannu ku raadinayay Ilaahayna ridu kaga helay marar badan baan xusuusan buuri ninkii nooca aha markaas waxaan leeyahay buuri Ilaahay agtiisa adoomada midka ugu miisaan culus buu noqon doona ya kariim ma absha as-sura adfal huwa ومع ذلك رغبا جنة كراسني علي بن ابي طالب دلكيسا هدي جنة لغو راسنيي سومالي لينتودا ان جنة لغو راسado maxaad ula yaabi marka علي baba جنة lagu doontay fikirku mar haduu qalloocdo oo uu jidka ka baydo halis waay waxaan idin leeyahay waxa noocaas oo kala in diin loo tiiriyo waa qalab
in kitaab ilaahi loo tiiriyo waa khalad in jihaad magaciisa la siiyo waa khalad in la taageero waa khalad in laga bari noqdana waa waajib nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabigiisa khaalid ibn alwaliid oo intuu ta'wiil sameeyey dad si khalada u dilay ayuu nabigu yidhi sal alay wasallam allahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu bari baan ka ahay kumana jiro ka midna ma ihi khaalid wuxuu sameeyey bari baan ka ahay khaalid wuu ijtihaaday dadaal bayna ka ahayd khayr doon buu ahaa nacam maanta inaad tunka saarato difaacdo ood waxa noocaasoo kalea u doodo walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum ina allaha laa yuxibu man kana khawaanan ahiima waxa noocaasoo kalea looma doodo lamana difaaco waa laga beri noqdaa haddaad ka beri noqon weydoy kula qumanaato waxaad ogaanaysaa hal qodob nebigu wuxu uhi sal ly waslam gafka marka la sameeyo oo dhulka lagu sameeyo ninka goobta jooga ee necab ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raalli ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joog ahayoo sameeyey buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaasoo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dembi baa tihin ka soo amrayna idinla dembi wey midka sheegtayna la dembi wey waxa noocaasoo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumanyaal ah oo boqolaal dhaawaca oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaasoo kale inaad tunka saaratood ku faanto aaway iimaankii aaway diintii aaway akhlaaqdii insaanka caadiga ah baan sheegan karayn ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku soconno meel sahlan ma aha inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhallinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaagga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idinla gelin adoo jaahilan waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yidhaahdo khalqigaa laa jannaduna waa iridda adiya janno waxaa idiin dhexeeya naftu inay kaa dhacdo laa oo aad haliishood yaacdood jannada ku orodo oo ay kuu timaado wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaad filanaysay waxaanayn uu kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay jannaa meesha taalla naar baa taalla xisaab baa taalla khalaa'iq aad laysay baa meesha taalla ma waxa kuu shafeecay hebel baa amray ma waxa wax kuu daraysa ururkan ka tirsanaa ma waxa wax kuu taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba kuu tari mayso warkaadsada oo tartiibsada oo hayshalaagina oo ummadda halaagina oo allah ka baqa tabaaraka wa tacaala sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة waxyaabaha dhacaya waa waxa aad looga naxo waana wax laga murugoodo waana wax laga yaqiiqsado xaaladuse waxay sii adag tahay marka jaraa'imta noocaasa lagu samaynayo magac jihaad markii lagu samaynayo magac diinta ilaahay baa loo nusraynayaa marka lagu samaynayo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladdu sii adag tahay maxaa yeelay dadkii iyo diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisii lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidadaa baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinayaa kullu daalika mafaasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma ah adigoo muslim ah dadkaagii layntooda inaad ku faraxdo ood sheegato